taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan oo boqolaal ka mid ah askarta ka tirsan ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle qaybtooda magaalada Beledweyne ciidamadaas oo loo soo xiray tababar oo maalmahan ugu socday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan ayaa sheegay in ciidamada ay ka qayb qaataan amniga maadaama magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhawaan ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Hiiraan taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan ayaa ciidamada iyo saraakiisha kaga digay inay siyaasadda ay ku milmin isla markaana ay ilaashadaan waajibaadkooda ciidanimo hadaladiisina waxaa ka mid ah sida tan magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay goob doorashooyinka loo calaamadeeyay Hirshabelle ay ka dhacayso doorashada waxaan u diyaar garoobaynay ciidamada u diyaar garoobayeen waxa koow ka ah doorashadaas saaka waxaan ka hadlaynaa ciidamadu doorkay ku leeyihiin doorashada gaar ahaan ciidanka booliska maxaan ku leenahay ma inaan siyaasadda ku malnaa siyaasadda aan ka shaqeynaa ku leenahay ma inaan waxyaabo kale ka shaqeynaa ku leenahay waa maya ciidamadu waxay ku leeyihiin doorashada waa amni inaan amnigeena aan sugnaan leenahay waxaan leenahay nin kasta musharaxoo yimaad magaaladan in la sugo amnigiisa si nabadgelyo ah lagu tartamo lagu doorto xildhibaan kasta waxaa doorahaya boqol qof qof kasta idaa laga rabaa inay nasiibkeeda cuntay istaagtoolkaas tartanto cid ku guuleysatay ilaa nasiibka dhiga xildhibaan naqaysa laakiin annaga waxaan nagala rabaa inaan ilaalino amnigeeda qofta hadday musharax tahay inaan ilaalino hadday tahay dadka ergada ah imaayana inaan ilaalino qof kasta oo ka soo qayb kasta doorashadaas ama ay timaad inaan ilaalino amnigeeda waxaan leenahay anigu inay doorashadu si nabadgelyo noogu bilaabato si nabadgelyana ay noogu dhamaato waxaan ka hadlaynaa uga digaynaa hadday sargaal tahay hadday ciidan tahay inaan lagu milmin la dhexgelin la isku dayin marraba in la dhex galo qof kasta ha u diyaar garowdo waajibaadka shaqo ay leedahay anagu doorashada doorkan kalena u diyaar garoon waa amni wax kale oo naga qoseeya ma jiraan